sharafka halkan qof waliba waxaan ku salaamayaa mudnaanta uu leeyahay dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal mudane gudoomiye mudanayaal waxay tahay munaasabadan marka ugu horeysa qiimaha iyo qaayaha badan waxaan rabnaa inaan uga mahad celino walaalkeen injineer Yariisow maaragtay gudoomiyaha gobolka duqa magaaladan Muqdisho iyo howlwadeennada iyo ku-xigeenada gobolkan iyo howlwadeennada iyo bulshada qaybaha kala tirada badan oo caawi halkan u soo xaadirtay soo dhaweynta kooxda fanka iyo suugaanta oo meeshan nooga soo jeediyay wacyigelinta iyo tusaaleynta nooga soo jeediyay baada warbaahinta ka soo qaybgalayaasha kulligiin mar kale aan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane gudoomiye iyo mudanayaal munaasabadda caaway halkan isku kaalay keentay waxay ahayd waa tii halkan laga aqriyay waa dastuur weey waa dib u eegidda dastuurka waxa caaway isku kaalay keenay waxaad la socotaan labadii maalmood oo ahayd arbacadii iyo khamiistii sidaad la socoteen warbaahinta lagala socoteen waxaa isku yimid oo tashi iskugu yimid dhammaan guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo ay sii kor joogaan guddoomiyaasha baarlamaanka federaalka oo gudoomiyaha caawana la joogo Cabdiweli Mudey iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo shanta gudoomiye baarlamaanada dowlad goboleedyada intaas oo dhan waxa loo wada joogay ujeedada ahayd waa la aqriyay xildhibaan Burhaan ayaa halkan si fiican uga sheekeeyay walaalayaal waxay ahayd inaanu dastuurkii maadaama muddo badan daldalool uu ka jiray muddo badan uu ka jiray iscaasin muddo badan ay ka jirtay sanooyin badan oo dastuurkaani dalalka dariska wahameenba meel marti ku ahaa haatana loo soo celiyay milkiilayaashii oo dadka Soomaaliyeed inay gacantooda ku laabto sababtaas baan isku kaaya keentay dalabka aan samaynay oo anagu walaalaheen aan u samaynay madaxda arrimaha dastuurka iyo hoggaanka baarlamaanada ee halkan isku kaaya keentay waxaan rabaa sida ay noo ajiibeen sida aan uga wada shaqaynay sida aan cidina wax gaar ah ka lahayn maslaxadii caamka ahayd oo Soomaaliya la iskugu yimid madaxdii intii ka soo qayb gashay dhammaan gobolada oo halkan noogu